haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo hayo Haruun Macruuf. khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha forex ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha forex. shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoololey, gedisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata ah. dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akawno ay ugu xaraysnaayeen. shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. saraakiisha dawladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen bounty scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto. bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku waraystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u waraystay horraantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska beddeleen. dadkaasi aan waraystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano, waxaana uu maal gastay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan waraysanayey. barnaamijkan horta furtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinaayey. markii la gaaray corona virus xaalad ku xumaatay bishii Abriil ilaa iyo up to now bishaan marayna bishii 8aad waxa lacag lama hayo. lacagta waxaa la leeyahay Turkiga ay taalaa ilba bilka dambe waxaa la leeyahay bishaan la qaadanaya. marka barnaamijka kulli haddaan fiiriyo barnaamij wuxuu weegiyahay isku dhamaaday. markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd, bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas. marka hore waa kulli isaan ku sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala ficnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameeyo. bal marka Soomaaliya waa taqaanaa beesha lagu yaaco way ku yaacdaa mawt. shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gebi ahaanba xilligan way kacday. dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macallin. shaqadan waxba kama aqoonin, rag maarta oo nin kale saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macallimiin way shaqada yaqaana way yiri meeshii aan u diibnay raggii baahda bil January kowdeedan wixii aan furnay. January marka ay dhamaatay lacag yar la bixiyay, Febraayo marka ay dhamaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyo waa iyaga dhaqaajiyay. dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tirada intay tahay? akawnay noo soo direen ay leeyihiin lacagii oo kuwaana meesha ugu khasaareen. marka waxay ku qornay 250 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 250 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karna anaga. $250 miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta? $1 lagama hayo. adiga imisa kaa maqan marka shaqsiyan? $13,000. maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo? hormay batatan baan waxa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur inuu yahay wax ka jira ma. asaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye. wallahi anadu waxay u maqan $250. waa gartay. saaxiibka magaciisa baad ku aamintay? saaxiibka magaciisa ku aaminay, asaga wajigiisa magaciisa ku tagay. marka mar hadda wajigiisa ku tagay asagna ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay. waxaad kale waadi meesha marka adiga haysan helaada. raje intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doonto?
wallahi dad u sheegay macnaha ilaa hadda niidii ma gashan lacagtaas hadda heli doontaaba. mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Traders oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 milyan sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo kaliya raadka lacaga lagu bixiyo mushaahar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa $1 milyan oo bankiyo kala duwan ku jirta. lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi Looga Yuusuf Cali. dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin Looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Traders lacag dhan $3 milyan iyo $700,000. dadka ila soo xiriiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. mulkiilaha shirkaddan waxaa horraantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayey. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan islamarkaana uu u sheegay saraakiisha amniga markii la xirayey. sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayey 7 Abriil 2020. magacaaga laba magac baad xustay Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Cawaale. magacaaga saxda waa maxay? aniga magacayga saxda ah waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax oo dhashay magaalada Hadarsimo ee gobolka Sanaag. magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa. misaal oo kale qofka xataa iska hal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 baan qaatay 2015 isma muqdisada xaween safarkii ugu horeeyay ku tagana wuxuu ahaa 2016 bishii saddexaad ku tagay. dad badan baa hadda waxa laga dhigayaa magaca saxda oo arkay dad badan wax ka qorqoraya dad badan wax ka yiri magaca anigu waa samaystay oo xaween qaab dadka muqdisho aan xaween aan samaystay magacayga bedelisi hadda taan xaween aan la soo qaban saasoo kale aan ku taxadiraya. baasaboorka anigoo gar wax tabaad ku kala bixiyay 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tagay. xataa markaan baasaboorka qaadanayay حتى النادي يكون شو الحبيب من كفوك نوان بون حبيب مقصة أكيد مركب باهيات أنا جديد كوينيا ومركب يوقف فينا المرع قاصو أيام قصة ويستي لكن مرع أنا رجو أحس يقولي هاي معها مرع الرسم جاي ومحمد أحمد عواله عباها إذا أنا إنسان ويا أحبا والله حويا اللي يقدر محمد عوال لكن مرع يستحضر ويقول عليا تذكر أول شيء يقول الصومالية بحليها واحد مرع محمد أحمد حاجي فرح marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dawladdu hayso ku qoran waa magac been abuur ma waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumenti kale ii kiisay isoo ku soo kordhiya. warqadda damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyay inuu hayo $3 milyan iyo $700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyay ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka arooriyey muddo 60 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa 8 Abriil kuna eg 8 Juun 2020. haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqadda damiinka. waa la soo daayay waxa lagu heshiiyey in kontrakad laga qaaday iyo فلاشي بدكي دومتي مالغشين كسمك إلا قاضي يحارنت إفرسي لقي إن لكيانو لعكين حيرات اللي غالك العكو بنسي جدا حوية سوعي وداشرين لغا قاضي حيرات لطلع وذكروا حول السيو وسيستم كمسويش في شركته ويهربوا شركته في تسيد ذلك لغسي فدعنا عيدي هذا يرين يستعي وعد أنا يقول لك إنه لو حاول نغا قاضي وحاول نغا نصدي أي سنتين marka waxa xad ma la yihiin waa xarunta IFRC oo hadda dadka antidooda haysata dokumentiga dadka waxa weeyaan haysata kombiyuutarada iska haysata ilaa hadda waa ka leeyahay dadka xooggiisa iyo loo fasaxo xoogga la siiyo aniga bilan suuqi meesha marka tijaabada safar baan ku ahaa oo ku yimid shaqo badan baan noqon jiray waa ka yimid markii dambe oo de institution ka xamar jira handada badan leh waxa markaan deeri wixii la xaraa oo dadka aan aqoon siiyo ashaqada siiyo handada badan baan xakulmay marka hadda geesan ba ku suganahay wargeysan joogaabaan marka xalay hay'adaha hadii xoog la haween siiyo waxaan ka dhacay ma jirto wixii aniga dhankayga soo jireen intii aan hargeysa ku sugnaa waan dadka xoogdiisii hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeriyay labada bilood waxay ku bixday June 8 marka maxaa lagu bixin weyday waqtigeedii lacagii ay hadeen aad bixiso goormaad ku bixinaysaa laba moodi arinta koowaad waxa weeye marka aan ku soo bil aan ku sugnaa waxay lacagta si xaraad laga qaado oo dadka xoogdiisii boqol Soomaa qofka labaad waxa weeye in koontarada soo celin dokumentiga shaqada laga qaado soo aan ku weydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa ku weydiinayaa qaabkee house qofka dambi waa geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo sidee lixii tobanka mitir loo qaatay dadka dokumentiga loo qaatay
dokumentiga dadka hadda dhexyaala waxa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaa war mahaya qofku isagu dambi waa geli karaa hal xiro oo anigu kama diidaniga laakiin hantidaa iyo xaqka ku ahayd ee asalka ahayd baan qaadanaya oo xoog baan qaadanaya oo xisaabtaada iyo xoog kula wareegaya oo sabab xoog bishin baan waxa rabaa xisaabtan waa ka xayraya dokumentiga waxa ka qofku waa kula dagaalami karo ama xoog bishin karna waa ka istaagiya taas macquul noqonayso siideynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 60 casho gudaheeda lacagtaas oo cadadkeeda uu qoray inay tahay 3,700,000 dollar xildhibaan Axmed Ismaaciil oo la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyay booliiska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraada looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay lacagtiisana u celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacaga malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maareynta lacagaha ee bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya shirkadahan dalkeena ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabeedna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada weliba u haysan dabeedna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yaroo koobanna helay fursadda ay wax ku khiyaameeyaan dabeedna kala wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabee muddo aan ka badnayn 3 ilaa 4 bilood baa laga yaabaa wax 80-90 magacyo shirkadeeda oo xayeysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arrinta opportunity ama fursadda ay u arkeen dadka ka dambeeyey inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax hore u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkaanu haynay inaanay jirin shirkado forex ku shaqaysta oo hadda wax cabasho oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 91 shirkadood oo ah kuwa forex hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya inta kale ma haysanin wax qoraal sharci ah sidaas oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahan ku shaqayn karaan oo sharci ah ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kaloo dawliyan ka haysatana laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxa looga dambaynayaa bankiga dhexe marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin sidaa waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay marka dee ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelahan saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad wasaaradda ganacsiga waxay bixisaa
rugsado gaara rugsadaha la regulate gareeyo ama la xidsaar nidaamisa iyagu uma xil saareen inay bixiyaan. Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 milyan oo dollar. hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 milyan oo dollar. tusaale ahaan mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa 20 ilaa 30 milyan oo dollar waxaa akawnkeeda laga helay $1 milyan iyo 300 kun oo dollar. shirkad kale waxaa akawnkeeda laga helay $1 milyan iyo 500 kun oo dollar. hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 milyan oo dollar. macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay'adaha sharci ilaalinta. tallaabada xigta waxa weeye horta dad badan baa runtii waxyaalo ka soo gaaray oo ku aydoobay ama xoolo kaga lumeen. dadka waxa la gudboon inay u dacwoodaan hay'adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ay kamid yihiin. iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasuna waajibkooda ka gutaan. waxaan u malaynayaa tallaabada ugu habboone dadka wax ka maqan yihiin ay qaadi karaan waa taa. shirkadaha laftoodii hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan, dhibaato taagan maaho ah in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. marka waxaan u filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xoolahooda ku maqan yihiin inay raadsadaan oo qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaadee ay u dacwoodaan oo dacwado uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.